waxa ugu farxadda badan oo aan maqlay maanta waxay tahay in 37,000 oo qof oo Soomaali ah adeeg aanay hore u heli jirin ay heleen go'aan annaga aan gaarnaa awgeed ama shaqo aan qabanno. laakiin waxaan rabaa in aan aqbalno in 37,000 ka badan aan adeeg siin kari lahayn haddii aan shaqada aan qabanay aan dejin lahayn maaha isbitaalka ka shaqeey laakiin annaga haddii hay'adaha amnigu ay waqtiga ay ku bixiyaan waqti ka kooban ku bixin lahaayeen isbitaalka la tiraafay haddii xoogga aan gelino mid ka badan aan geli lahayn laakiin waa tusaale waxaan wasiir Fawzi uga mahad celinayaa iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda dadaalka ay bixiyaan waa ogahay weli inuu dhib jiro laakiin ugu yaraan waa bilow meeshaan waxay u hagaagsan tahay markaan rabaan in meeshaan waxay u hagaagsan tahay waxa mas'uul ka ah gabar Soomaaliyeed oo iyadoo uur la wareegtay oo 2 maalmood iyadoo dhalan ku soo laabatay boqolkiiba meeqa qof asaas isu xilqaami karta dalkan waa ina aqbalna waa tusaaleynay tahay meeshaan waxaan aaminsanahay markay inay bilow tahay dawladdu inay qorshe leedahay adeegyo caafimaad ka shaqeeyo